kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada boggeena YouTube ee Brothers Media Group oo aad alaaba ka daawataan warbixinadii ugu dambeeyay ee xasaasiga ah dhacdooyin cajiib ah iyo waliba muuqaalo badan oo idin xiiso geliya fadlan daawaday haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee boggeena YouTube ka mid noqo boqolaalka kun ee qof ee boggeena YouTube rukuntay fadlan subscribe saaro gambalaalkana furo si aad markaas u noqotid daawadaha ugu horeeya ee hela warbixinada xasaasiga ah ee halkan soo galin ku mahadsanida isbuucan dhacdo cajiib ah oo argagax leh ayaa ka dhacday geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Hargeysa ee gobolada waqooyi galbeed ee Soomaaliya dhacdadan ayaa in muddo ah waxa ay dhex mareysay bogagga YouTube social media Facebook iyo aaladaha kale ee YouTube dhacdadan cajiibka ah ee argagax leh ayaa waxay tahay in wiil dhalinyaro ah lagu toogtay magaalada Hargeysa si xaq darro ah lana toogtay dambiilayaal dambiyadoodu ku cad yihiin isagoo wax dambi ah aan loo haysan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Farxaan Maxamed Xasan Yare ayaa shalay lagu toogtay dil uusan geysan Farxaan ayaa ah wiil muddo 10 sano dhan Hargeysa ku xirnaa kadib markuu waayay tol ka bixiya diyo ama mag loo haystay Farxaan oo muuqaal hadda ka hor ka soo dhex duubay xabsiga Hargeysa ayaa sheegay inuu yahay beesha dhulbaante asagoo shanta beel weyn ee daarood ka codsaday inay magta ka bixiyaan haddii magta laga bixin waayana Hargeysa lagu toogan doono daawadayaal waa idin soo gudbin doonaa warbixintan ama muuqaalkan bil ka hor Farxaan laga soo duubay waxyaalaha murugada leh ayaa waxay ka tahay in Farxaan uusan maxkamadda ka hor qaran inuu dil geysto sharciga islaamkana qofka waxa la togan karaa marka uu dil geysto ama markhaatiyaal ku cadeeyaan inuu falkaasi ku kacay sidoo kale Farxaan ayaa la toogtay dambiilayaal qirtay dambiyadii lagu soo eedeeyay maxkamaddana ka hor cadeeyay waxaa jiray dardaaran walaal Farxaan shalay lagu toogtay dil marneera 2 saacadood ka hor inta aan la toogan Farxaan Maxamed Xasan Yare wasaaradda diinta iyo qoofta Soomaaliland ayaa ka reebtay dardaarano ay ka mid yihiin lacagtii loo arooriyay ubadkayga hal la siiyo marka laga reebo wixii shareecadu qaybteeda ka siiso 2 ninka la ii haysto ee la ii dilayo ama aan dilin markhaati ugu furayaana ma jiro 3 tolkay waxaan leeyahay nimanka dulmiga igu dilay ilaahay hortiisa ayaanu ku kulmaynaa iyagoo dambigayga xambaarsan ayaan cidna la iga dabageyn dardaaranadan 3 ah ayay wasaaradda u gudbisay Sheekh Cumar Suudaani Axmed Maxamuud oo kamid ah culimada magaalada Boole awqaafta ayaa ku raagtay inay ku qanciso dhinaca kale in dib loo dhigo fulinta xukunkan maadaama aanu Farxaan qiraal ahayn isla markaana aanay jirin markhaatiyo isla markaana ay shuubada mugdi soo galay balse way ku guul dareystay markuu si adag u diiday soo jeedintaasi Ali Axmed Shire oo ka socday dhinaca sheeganayay inuu Farxaan qof ka dilay daawadayaal ku soo dhawaada warbixintii bil ka hor ama kilibkii bil ka hor Farxaan ka soo dhex duubay xabsi ku yaala magaalada Hargeysa الله الرحمن الرحيم مقعي وفرحان حسن كسو جيدا باشا دارود غارهان باشا بالبهانده غارهان باشا أحمد جراد waxaan ku xidhanahay jeelka weyn Hargeysa halkaas oo muddo 9 sanadood aan ku xidhanahay muddada 9 sanadood waxaan ku xidhanahay mag 9 sanadood beeshiida waan la hadlayay Axmed Garaad magtaana inay iga bixiyaan waan ka waayay oo iga bixin waayeen sidaa darteed markaan 9 sano oo kamid ah umrigeyga aan ku dhameystay jeelka waxaan go'aansaday inaan fariinteyda gaarsiiyo dhammaan beelweynta daarood meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba madaxdooda iyo maxaan ku raahdaa mudanayaashoodaba sidaa darteed waxaan ka codsanayaa beesha daarood cid kastoo hadalkayga gaaro oo kamid ah inay ii soo gurmadaan magtaana iga bixiyaan waxaan ahay aabe 4 carruur leh qayb kamid ah carruurtooda waxay dhasheen intaan jeelka ku jiray mana aan nasiibna umaanan helin inaanu is aragno oo midowno nasiib umaanan helin sidaa darteed mudane iyo marwaba beesha beelweynta daarood waxaan ka codsanayaa inay magta iga soo bixiyaan si gaarana waxa weeye waxaan leeyahay mudane iyo marwaba waxaan la hadlayaa magaca daaroode muddo badan nin xidhan baan oo mooralkii jabaye manfac ma laha aakhiro dad yahow magaca reereed maanta aan inii baahanay mudanayaalowe madoobiyo kale dani ku tahay waa macjuurahay مصطفى فرماجان أدري مصنع هذا له aad baan idin salaamayaa maadaama aan si public ah idin ka soo codsaday idinkoo beelweyntii daarooda wax aad u yar oo magac waxaan idin ka rajaynayaa inaad meesha igu caabayn publicaas la iga dhageystay magtaana aad si degdeg iga soo bixisaan